السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد مانتنا دروستيني أن هلا وقش أجن وعي جرينتا ومانتنا دو إلهي أبو نوسي سوني مانو. وحن مانتنا رأينا إن كهذلو قضب كله ورنتي ضدك آد أسامي إن ولي قال هان رجع آد ديوات بدن كوهية أيان دنيا مانتنا كهذلو قضب كاس وحويان قضب كحق إنجليش كويا erectile dysfunction. أما dhibaatooyin xagga maaragtay ragga uga imaanaya xagga maaragtay problem awoodda xagga galmada uga imaanaya ragga oo aysan awood lahayn ereygan marka erectile dysfunction ama awood la-aanta xagga galmada ah waxay ka markii la tilmaamo waxa weeyaan awood la-aan ninkii uusan awood u helaynin in markii uu helo kartida maaragtay xagga xubinka taranka markuu u weynaado ama xoogga yeesho uu ku ceshto ilaa saacado badan ilaa saacadahan dhihin ilaa daqiiqado badan oo ku filan galmada inay dhacdo oo markaas ku celin karo waxaa kaloo ka mid ah reduce sex drive qofka dareenka inay ka yaraado ayaa iyadana dhacdo mararka qaarkood oo dad ka mid ah iidida ka mid ah soft erection waxa weeyaan kartidii waxaan la yidhaahdo xagga ereyada suuqa markaan isticmaalo luqadaha suuqa kacsiga oo kale marka uu yaraado uu dabacsan yahay waxay kaloo taas keenaysaa walwal anxiety walbahaar dadka bukaanka markay albaabka kasoo galaan ragga oo kale ii imaanayaan wejigooda waxaan ka akhrisanayaa markiiba qofkii arrimahan hadhow ii sheegi doona walwal zaa'ida rajo la-aan qalbi xumo xad dhaaf waxaasoo dhan iga muuqda marka sababta aan maanta u xushay qodobkan waxaa weeyaan maadaama dhibaato badan ee dadku haysa waxaan arkay intaan shaqaynayay guryo badan oo ku dumay nasiib daro laakiin dadka waxayna soo gaareen male guryahoodii maaragtay ay dumiyeen sababta guriga duminaysana waxaa keenaya walwalkii ninkii dabeecadda ka xumaanaysa qaylo buuq cabsi maaragtay cuqdad waxaasaa gelaysa laakiin waxa weeyaan haddii ay soomaalida oo kale ahaan lahay dad akhriska ku fiican soomaalida waan ogsoonahay waxa weye waxaan jeclaha anagu inaan hadalno meeshii aan ama wax dhegaysano laakiin inaan wax akhrino ma jeclin haddii aan ahaan lahayn dad aad wax u akhriya waxaan ogaan lahayn waxyaabahan inay yihiin wax iska caadi ah badanaa waxa keenaya in ay yihiin waxyaaba wax laga qaban karo ama iska fududba ama iskood xataa marqa badan waa transitory oo iska guuraysaa see loo xaliyaa weeyaan haddii intaan gelin wax kaleba waxaa weeye lifestyle change qofka noloshiisa wax laga bedelo maxaa ka mid ah qofka noloshiisa wax laga bedelayo hurdo xumida ayaa keenta midaan maaragtay iidiida hurdo xumidaa keenta waxyaabaha kale aada uga mid tahay xagga dhalinyarada oo kale markaan fiirino filimadan maaragtay pornographic ay dhahaan oo nimanka qaqaaban naagaha qaqaaban wax noocaas dhalinyarada fiirsata aada u iyadana wuu saameeyaa wuu ku dhaca inkastay dhalinyaro kaliya ahayn oo xataa aan dhici karto maro badan waa aragnaa inay odayaa xataa dad waaweyn xataa maaragtay filimada noocaasa daawado dadkaas marka aada ugu dhaca iyagana sababta waxaa qofka wuxuu ku tegayaa filinkii iyo waxa uu fiirsanayay nolosha caadiga ahayd ayaa waxay ka noqonaysaa marka mid dhib ku noqonaysa daawooyin qaar keenaa jira prescription medications daawooyin keenaa jira qofka inuu maaragtay kacsiga ka xumaado oo hoos uga dhaco waana lagu daaweyn karaa daawooyin way jiraan lagu daaweeyo oo ay ka mid tahay daawo sildenafil waxyaabaas ay ka mid yihiin waxaa ka mid ah psychotherapy qaabka loo daaweeyo psychotherapy waxaa la dhahaa jira daawada ma aha keliya irbad iyo kaniin iyo wax noocaas psychotherapy waxaa jira hadal qofka lagu daaweynayo oo qofkii lagu fahansiinayo xanuunkiisa kadibna isagaa markuu fahmo isqancinayo kadib iskiis u bogsanayo qofkii medical devicesaa jira qalabyaa jira maaragtay qalliin ahaan inta la geliyo xubinka taranka xoogaa maaragtay taagaya taasna way jirtaa laakiin waxaan idiin sheegayaa dadka badanaa waxaasna uma baahno badanaa waxaa weeyaan waxay u baahan yihiin xoogaa yaro advice in la siiyo ama dhaqamada maarata hadda aan ka sheekeynayna oo qofkii maaragtay lala taliyo oo iska bedelo noocyaha marka maxay kala yihiin organic eating arrimahan kacsiga oo dhibaatada ay keenaysaa xagga maaragtay cudurro oo jirka ah waxaa ka mid ah xagga xididada dhiigga qaada oo keenayso waxaa ka mid ah xagga xididada maaragtay neerbayaasha ah waxaa ka mid ah hormoneska hormoneska oo kale hadday hoos u xumaadaan hormoneska rag oo kale
qofka waa ku dhacaysaa arrintaas. xagga xididada markaan dhahno laf dhabarka kale hadduu qofka wax ka noqdo ama wax ka gaara ama ka jabo, waxaa weeye xididadii laf dhabarkay soo mariyeen, waxaa kala go-aya connectionki, xiriirkii xubintii taranka iyo maskaxda ayaa meesha ka baxaysa. then qofkii waxaa ku dhacaysa markaa hormoonka iyadana way jirtaa laakiin ma badna. si aad rag badan waa arkay intay imaadaan dhahay hormoonkayga raggayga fiiri waxaa malayn uga yaraada wax noocaasa, laakiin badankooda ma ka helno. waxay u badan yihiin psychogenic ED ayaa jira iyadana. maxaa keenaya? walwalka keenaya. baqdinta dadka businesska oo kale ku jira, dhaqaalaha waxaas ama waxa lumaan ama wax kaas qof dhaqaale ka lumay, waxaas oo dhan psychogenic walwalka anxiety ku abuurmaysa. waxaa kaloo keeni kara depressionka waxaa weeyaan qalbi xumada, niyad xumada, cudurrada keenay ka mid yihiin. stress waxaa weeyaan baqdinta iyo shaki walwalka zaa'idka, stress waxaa la dhaho, oo hormoneska qaarkood jirka soo deynayo oo ka mid yahay cortisol, taasoo keenaysa maaragtay inuu hoos u dhaco awooddii qofka kacsiga inuu hoos u dhaco. relationship problem, labada qof xiriirka ka dhexeeya iyadana meesha waa ku jirtaa, taasna way keeni kartaa. labada qof oo partnerska ah xiriirkooda noocuu yahay, hadday isku fiicnaan, hadday isku kalsoonin, hadday isku wax noocaas way imaanaysaa iyadana inuu awooddii maaragtay kacsiga inuu hoos u dhaco. traumatic sexual experience, ragga oo kale yaraantiisii sexual experience oo traumatic ah, wax violent kusoo dhacay, ama ilmaha ciyaalka xataa wiilashii waa la xoogi karaa, waa la xoogay kaba dhibba, waxaas oo dhan way keenaysaa, ka mid weeyaan. situation ayaa jira, waxaa jira marxaladaha qaarkood ayaad arkaysa qof saas noqonaya, waqtiyada kale iska fiican. qof waxaad arkaysaa some partner saas ku noqonaya, laakiin dadka caadi markuu kale iska fiican yahay. waxaa loo kala saaraa haddana primary iyo secondary. primary waxaa weeyaan qof markuu dhashay ilaa weligiiba aan awood u helinba maaragtay electionka. secondary waxaa weeyaan qof sabab ay u keentay, sabab ama jiraan noqoto ama psychogenic ha noqoto, waxay ahaataba. haddii hadda aan ka hadalno prevalensiga, badanaa prevalensiga arrintan lama qiimeeyo. sababta waxaa weeyaan wax adduunka dhan isku raacsan yahay maaragtay oo instrument oo la raaco ma jirto. oo marka waxaad arkaysaa for example meel hebla waxaa la sameeyey cilmi baaris noocaasa, laakiin maxay raaceen instrumentkay raaceen. instrument waxaa weye su-aalaha questionnaires kala weydiinaya qofkii wax noocaas way kala duwan yihiin. marka marba haddii maaragtay questionnaires ay kala duwan yihiin, waxaa weeye waxa soo baxay jawaabo kala duwan. sidaa awgeed ma lagu mashquulo maanta. waxaa fiicnaan lahayd haddii la isku raaco hal instrument oo adduunka o dhan maaragtay, marka waxaan ogaan karna waxaan helaynaa prevalence, tiro sax ah oo la dhihi karo maaragtay adduunka o dhan wuu isku raacsan yahay. maxaa saameeya? waxaa saameeya da-da, waa ka mid kow da-da for example qofka markuu sii weynaadaba awooddiisii maaragtay electionka waa sii daciifaysa, waa sii yaraanaysa. waxaa ka mid ah methodologyga, yani tii hadda aan sheegaya, yani marka cilmi baaris la sameynayo kale oo qofka laga wareysanayo instrumentiga la raacayo oo kala duwan. study populationkaas marka aad sameynaysa cilmi baarista, dadka aad shiishka saartay, dadka aad cilmi baarista ka dhex sameynaysa, haddii ay yihiin dad dhiikar qaba, dabcan waa ku badanaya dadka erectile dysfunction. haddii ay yihiin dad sokor qabi, waa ku badanaya, waayo xagga xididada ayay sokorta saameynaysaa, taasoo keenaysa marka in awooddii kacsiga hoos u dhaco. health condition, marka haddaan usoo noqono iyadana caafimaadka, dhiigkarka waan sheegnay, sokorta waan sheegnay, depressionka haddaay markii aan hadlayay ayaan sheegnay, iyo cayilka obesityga, cayilka zaa'idka ah iyadana way saamaysaa arrintan. marka maanta maadaama ujeedadeena ay ahayd mid wacyigelina, maanta waxaan jeclaan lahaa intaas inaan kusoo ekeeyo. waxaan jeclaan lahaa marka ummadda inaan ku xoojiyo waxyaabahaas kale qofka isku arka, ma garatay, xubnaha taranka oo awooddooda kacsiga hoos u dhacay, yuusan qofkii walwalin, yuusan nexin, yuusan waxba walbahaarin. isbitaalkaad imaanaysaa, waa lagu wareysanayaa, 90% waa la daaweyn karaa, ma garatay. marka waxbaha walwalin, taas weeye sababtaan maanta u xulanay qodobka. mahadsanid.